ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in Itoobiya nukliyeerka ay rabto aanu ahayn oo kaliya dhalinta quwadda korontada. For Ethiopia, nuclear is not only about energy, it's about people. tamarta nukliyeerka ee Itoobiya kuma koobno oo kaliya koronto balse waa mid ku saabsan dadka. It will unlock knowledge for our students. waxa ay furi doontaa aqoonta ardaydeena. Provide tools for farmers. waxay siin doontaa beeralayda qalab. And bring healing to patients. bukaanada waxay u keeni doontaa bogsiin. It is about expanding a foundation where opportunities multiply. waxay ku saabsan tahay ballaarinta aasaas ay fursaduhu ku badanayaan. We will pursue this responsibly. waxaan u wajahaynaa arrintan si mas'uuliyad leh. With careful planning. annaga oo samaynayna qorshe taxadar leh. The highest safety standards. hirgelinayna heerarka badbaadada ugu sarreeya. And by building strong local capacity. isla markaana dhisayna awoodda gudaha oo adag. For us, nuclear power is a strategic step. annaga tamarta nukliyeerku waxay noo tahay tallaabo istaraatiiji ah. In becoming an active participant in artificial waan kaga qaybgelayno sirdoonka macmalka warshadaha iyo hal abuur intelligence in industry and innovation.